luqadda ma akhriga waxyaabay kugu qosolka badnaa aad ka maqasho ama aad kala kulantay maxaa kamid diyaarad baa cirka maraysa waxaan arkaa calaamad baa muuqata calaamadaas waa midadkii aan ka helaa anigu haddaan doono oo hadday doonto naag qurux badan meelaha maraysa ayna qurux badan meelaha maraysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسكريج كارتا وكسوغان عيرقابو السناق dadweynaha magaalada Ceerigaabo maadaama aanu hadda ku sugannahay waxaan weydiin doonaa su'aalo kaftana sidii caadiga ahayd bal haddaba su'aasha aan weydiinayna maanta reer Ceerigaabo waxay tahay su'aal kaftana oo oranaysa ka hadlaysa arrimaha jacaylka iyo su'aashaas waxay sidoo kale oranaysaa luqad laga hadlo deegaanada gobolka Sanaag loo yaqaan maakhiri waxyaabo kala duwan oo qosol badan ayaad ku arki doontaan bal reer Ceerigaabo sidee bay uga jawaabeen su'aalahaas kaftanka waxyaabo kala duwan oo qosol badan ayaad arki doontaan magacayga waxa la yiraahdaa Xuseen Jaamac Cabdi Xuseen Jaamac maadaama nin reer Sanaaga tahay su'aal baanu ku weydiinaynaa maadaama nin in badan waay aragnimo badan Sanaagu leh oo in badan joogay luqadda maakhiriga ama afkan maakhiriga ee Sanaag inta badan deegaanadiisa laga hadlo waxyaabihii aad u soo joogtay ama kuugu la yaabka badnaa aad aragto maxaa kamid ah waxa kamid ahaa nin Caraba ayaa wuxuu keenay dooni raashina dabadeedna wuxuu keenay xiis iyo mayd dabadeedna wuxuu Carabkaas yiri waxaan doonayaa in dhamasha iga iibisaan dhamas inay iga iibisaan aan dooni ka dhigto dabadeeto 3 bilood baa reer xiis iyo reer mayd xoolihii cunay ninku sitay gig ka siiyeen dabadeedna ninkii markuu 3 bilood joogay buu yiri jawaan waan iska tagayaa dabadeedna xaqiisii buu tagay xaqi belad carab ayuu tagay dhulkii carabta markaasaa la yiri akhuuhi balbooran markaasuu yiri in kan tishti kadib روحه وحيسه وميت سعيد علي كسو دو والله المقعد سعيد كسو دو channelka Secret Karta waxa ku sugannahay Sanaag Ceerigaabo maadaama kamid tahay dhalinyarada gobolka Sanaag ku soo dhaw channelka aad iyo aad saaxiibo ku dhawaay Secret Karta adigana Ceerigaabo ku soo dhaweynaa inkastoo barco iyo xagga kugu hogeyntii adigo imaada laakiin ku soo dhaweynaa halkan balaarin baa socota imika runtii gobolada kale aan tagayno Sanaag wanaga joogno runtii barnaamijkan waxa fududeysay safar salaama shirkadda socdaalka isku xidha Ceerigaabo iyo gobolada kale ka war adigada shirkaddu idin qabatay niyo shirkadda safar salaama shirkadda aad wanaagsan wali waxa ku fiican tahay xagga waxyaabaha kaargooga aad ugu wanaagsan tahay marka shirkaddaas badan bay soo kordhisayo alaabo fara badan oo waqtiga on time ba inta badan ku geeyaan meelaha ay markay magaalada keenayaan su'aal shan ku bilaabay kaftanka intaad Ceerigaabo joogtay waxyaabihii kugu qosolka badnaa ee aad maakhrinimo kala kulantaa maxay ahaa niyo wallahi Ceerigaabo doorta dadku inta badan waxay ka aaminsan yihiin meel maakhriyo waxay tole hadallada la soo dhigo ma garan laakiin dadkaygu saas ma si baalkeesne waxyaabaha bal laakiin way jirtaa waxyaabo imika tusaalaha kale adigoo halka fadhiya ba marka la doonayo in isku cusubto lagu goloma adigoo kala imika yimid moogta dabadna xal war waxay gaariga cusub soo galay iyo mar lagu hoos dhigo maay tolay maanta falaasad cusub baad keentay iyo waxa sheeka jirtay laba nin baa waxa dhacday magaxba yimaadeen oo reer galbeed oo Hargeysa yimaadeen Ceerigaabo yimaadeen dabadna inan bay meherdeedii fadhiisteen dabadna inantii baa inan u soo gashay markaasay tiri waxay aragtay in laba nin oo cusub meesha fadhiyaan moogta markaasay tiri ayaa heblaayo ii waran fiican tahay oo maanta laba falaasadood cusub baad soo baysatay markaasay tiri haa oo laba falaasadood cusub baan keenayo waliba tacasba shaahi qaboojisa markuu ilkalaay ninka casaba ilkalaa moogta dadla markii ka baxday meeshii ka tagtay ayaa nin soo galayo markaasuu ninkii meel la fadhiyay nin baa la fadhiyo markaasuu yaaryaanayn meeshan iska kacay ninka leedka hadlayay iyo falaasada ilkaa markiis falaasada qaboojinaysa maad garanaysaa wanka ilkaa ale cas meesha ka cara
la sidii magaalada ka carar marka way jirtaa waxyaabahaas reer gaabana aan bay ku yihiin inta badan laakiin saa uma sii foga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdikariin aadan maax naanaysteeduna waa libaax xasanaag ku soo dhawow channelka Scratch-Karta Ceerigaabo Sanaag baynu ku sugannahay waa dhawahay walaal aad iyo aad baan dhawahay walaal aad baan dhawahay su'aalo kaftana ayaa waxa fudaysay shirkadda Safar Salaama oo caan ku ah socdaalka gobolada Sanaag iyo gobolada kale bal ka waran adeegyada shirkadda idin qabato runtii dee adeegyada shirkaddu qabato anigu kolley nin ganacsada baan ahay hadda muddo iyadan runtii ku xidhnaa waa shirka aanu aad iyo aad u soo dhaweynay xagga aaminnimada iyo degdegsiimaha iyo shaqada degdega marka runtii aad baan u soo dhaweynaa shirkadda Safar Salaama waxaan ku bilaabayaa su'aasha bal intaad Ceerigaabo joogtay ama maadaama nin Ceerigaabo tahay waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa qof jacayl aad wadaagaysan aad kala kulantaa wallaahi runtii waxaa igu la yaabka badnaa muddadii aan shaqada bilaabin intii aanan ganacsada ahayn runtii gabadhaanu sheekaysan jirnay professionkayga markay ogaatay markii hore jacayl baana dhex maray markii dambe waxaan u sheegay inaanan wax hanti aanan ahayn reerkoodana aanan dooni karin sidaa daraaddeed waxay go'aan ku gaadhay inaan wax professionkii jacaylka oo meesha ka baxo taana waxaa kaliftay dee waxaynta waxaan leeyahay habluhu waa inay fududeeyaan mustaqbalka iyo guurka taasaan kula talinayaa hablaha dhammaan Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa dhacay marka waxaa dhacay runtii dee markii hore professionkaygu wuxuu ahaa inaanu gabadha mustaqbal iyo aroos iyo aan wada gallo markii dambena waxba waan isla waayay alxamdulillah markii dambe gabadhu reer Sanaag bahayd markii dambe nin ganacsada baan noqday alxamdulillah muddo 2 sano ka bacdi waxay ogaatay inaan ganacsada ahay fariin bay markaa igu soo dirtay WhatsApp-ka waxay tir ka waran hadaynu arrimihii jacaylka ka soo wareegtay marka 2 years baa ka soo wareegtay 2 sano anna waqtiga waxaan ahay nin ganacsada oo professionkiisa iyo arrimihiisa iyo himiladiisa gaadhay hadda xaas baan leeyahay 7 ciyaar codsigii markaa maxaa dhacay codsigii de jawaabtii baan siiyay waxaan idhi Janiski ku soo maray waad ka faa'iideysan weeday hanti la'aan baad igu nacday igu diiday maantana hanti baa leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin marka Janis ma haya xaflad Janis maanta today baan ku yiri marka iga raalahow marka hadda wali way la soo hadashaa waxay tiraahdaa ka waran haddii si aan baqaanto jacaylkii marka waqtigii gaban istaan alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxaan leeyahay gabdhuhu waa inay soo dhaweeyaan mustaqbalka rag ayaan ku nicin wax la'aanta hanti waa la helayaa maantana ma haysid barino waad heli doontaa insha Allah magacayga Axmed Cali baa la rabaa Axmed ku soo dhawo channelka Scratch-Karta aad iyo aad baan ugu dhawaysay kariye maadaama gobolkii Sanaag Ceerigaabo aan ku sugannahay shirkadda Safar Salaama ayaa fududeysay barnaamijkan ka waran shirkadda Safar Salaama adeegyada ay qabato ama waxyaabaha ay kaga duwantay shirkadda kale horta waxay kaga duwan tahay isla maanta aad baxaysaa mar dhowna waxba joogtaa Hargeysa marka waxaan ka garaysanay gawaaridii waaweyn ee waraadada aan raacinay baan ku garaysanay shirkadda Safar Salaama aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ganacsiga mid ka badan ha keeneen si magaaladu ula qabsato dunida horumartay adood ma su'aal kaftana ku weydiinaya luqadda maakhriga waxyaabihii kugu qosolka badnaa intaad Ceerigaabo joogtay aad aragtaa mad la kulantaa waxaa ka mid ahaa hadda koor baa wiil ka yimi Abudabi baan soo raacnay maqaxay baan nimid madhoobe waxay guraadeen warni markabkan ku soo degay muxuu ahaa kaalay maad naga qayb gelinay markabka soo degay inaan xamaalinta noqono waxyaalo qosolka badan ka mid ah markabku waxa weeye qofka ila socday dabada ka yimi waxay leeyihiin markabkan kula socday ma shaxaad igu maad wax naga siinayn ma kaliya baa iska wataa marka kaas ay ugu qosolka badnaani waxa dhacay anigu waan fahansanaa ma garanay ninkii baa yuniyo Ceerigaabo ma tigad beelada waxa markabku soo degay madhoobe baan ku laaba adiga kaas ay ugu qosol badnaa waxa la yiraahdaa Sharmaake Maxamed Cabdi Sharmaake ku soo dhaw channelka Scratch-Karta waan ku dhawaay maadaama gobolkii Sanaag aanu joogno Ceerigaabo su'aalan dadka weydiinaa shirkadda Safar Salaama barnaamijkan fududeysay ee socdaalka gobolada kale ka waran adeegyada shirkaddu idin qabato adeegyada shirkaddu noo qabato aad baa looga raystay baabuurtii la sugi jiray wiiga maxaan ku raahdaa markaad subaxii baxdo habeenkii wax joogto Hargeysa marka aad buu fiican tahay Safar Salaama adood ma shirkaddu adeegyo kale soo kordhisay su'aashan ku bilaabaya waa su'aal kaftana maadaama nin reer Sanaag aad tahay Sanaag waxa ka jirto luqad leedahay maakhri runtii waxyaabaha aad ugu soo joogtay ama ugu qosolka badnaa maxaa maakhriga waxa weeyaan kulli anu waxaan u haystaa maxaan ku raay ilbaxnimadii ay gobolada ka horeysay Sanaag xeebaheeda waliba xiis iyo maydh marka taas aanu haystaa inaan maakhri kale si kala ahayn way su'aal kale aan doonaynaa inaan ku weydiiyo hadaba la xidha arrimaha jacaylka runtii waxyaabaha kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa jacayl kala waxay ahayd maxaan ku raahdaa mar Hargeysa tagi oo inaan aan la yar sheekaystay waxaan ku isku fiicantii
jacaylka waan isku fiicnaa haddana waan ka yar weynaaday kowdhe inantaan la sheekaysta waxay tidhi waa la isla tagaa waxa la tagaa meel kaloo leehdo arabsiyo haa waalidka ayaa abaha maanu joogin maye waa joogaa laakiin tanaa ka fududoo caawa waynu wada joognaa marka maydeeyadaa tidhi marka arrimaha jacaylka wax aad u xumi igama soo marin maasha allah wixii intaa ka dambeeyey hawlaha iyagoo dhammaysan farxaan ismaaciil farxaan ismaaciilow ku soo dhow channelka waa ku soo dhowey walaal mahadsantahay aad iyo maadaama gobolkii Sanaag aanu joogno Ceerigaabo su'aalaan ku weydiinaa shirkadda Safar Salaama ayaa barnaamijkan fududeysay ka waran shirkadda Safar Salaama waa shirkad socdaalka gobolada kale ee wadanka isku xidha iyo Ceerigaabo balka waran shirkaddu waa noo fududeysay xagga socdaalka dadkiina waa noo kala fududeysay waa shirkad waa u mahadcelinaa shirkadda su'aashan ku bilaabaya su'aal kaftana maakhrinimo luqadda maakhrinimadu caan bay ka tahay gobolka Sanaag waxyaabihii aad u soo joogtay ama kuwa qosolka badnaa maxaa ka mid ah waxaa iga mid ahaa walaal gobolka Sanaag halkan Ceerigaabo ka tagay waxaan tagay meesha Hargeysa ina waxaan fariisay kabadh laba nin baan nahay ina waxaan fariisanay kabadh qaad ma haysano waxba Ceerigaabona waa aragto waa laga khayr baa laga qabaa ina kabadhkii waan fariisanay anaga waxba haysan ina nin baan waxaan ku nidhi labadeeda sida hadalay ninka kale wuxuu yiri wana geeluna waa ma yahay ceelkiina geel waa ma yahay nima badan markaa fadhiga qaadkooda haysta bas waxaan ku yiri ceelkiina waa qalalay nimankii meesha joogay waa naga carareen waaba carareen ceelkaas soo gashay ahay waaba naga carareen taasay igu la yaab badnaa aniga aad iyo aad baan salaamay waxyaabii kugu la yaabka badnaa ee aad jacayl aad kala kulanto ama kugu qosolka badnaa maxaa ni wallahi waa badan yihiin laakiin simidii aan la yaabay waxa ahayd inan aanu wada sheekaysan jirnay oo habeenada ka mid ay soo garaacdo tiri walaal Hargeysaan joogaa $5 soo dir shopping baan ku soo samaysanayaa taas ay igu la yaab badnayd marka maxaa dhacayse maxaad samaysay maxaan sameeyay lambarkii u bandisaday xuwaanan haynaane ya waa deemisay lambarkii telefonkii u bandisaday maxaan go'aan noocay waxaan ka jacaylka lacagta un baan ka booday ma garanay inantii markaa meel inantii wallaahi inay suuqa biibsiga Hargeysa imika ku sugan tahay waan jecelahay ya magacayga Mubaarak Maxamuud Jaamac Cabdi baa leeyahay Abaan Mubaarak Maxamuud Jaamac Cabdi abaan waarig ku soo dhawow channelka Sikri Jakarta waxaan ku sugannahay Sanaag Ceerigaabo waan ku soo dhaweynaa waayahay markaa heestii ma ku bilaabaa su'aal baan ku weydiinaa barnaamijkan waxa fududeysay shirkadda Safar Salaama oo socdaalka Sanaag iyo gobolada kale isku xidha ka waran bal shirkadaas wallahi shirkadaas sidaan waxaan leeyahay ha noolaato ana hirgasho su'aal baan hadoo ku weydiinaya kaftana waxyaabihii kugu la yaabka badnaa jacayl ama maakhrinimo oo Sanaag lagaga hadlo aad kala kulantay maxaa kamid ah waxaan kala kulmay ugu qosol badnaa markaan gabadh leeyahay jeclaaday xamar bay ahay taas Soomaaliland ma ahayn waqtiga hore ahay anna reer Ceerigaabo askari baan ahaa markaa sarkaal wax diglaa baan ahaa markaa ninka wasiirka maaliyadda wuxuu ahaa nin Barwaani soo taqaanay mooyaan xaafadda Madiina aanu deganay gabadh baan 2 sano sheekaysanay jirdiinka Madiina aanu sheekaysanay maalintii dambe ayaa 2 dabaq hortada laga dhisay 2 dabaq soo ninka dhisanaya sidii ninkuu dhisanayay ayuu markay gabadho gaadhi XL wadata XL ki bargaa loo wadan jiray naawa maxay baan gidaarkii baan fadhiyaa ma aragtaa waxay tiri saaxiib halka dhalalayso ma aragtaa halkaasaan nin jeeboon ka helay waxaan weeyahay aniga maxay la dabacday waxay tiri yara sug ma yidhi sug inta la aroosiyo habeenkii dambe arooskii arkay barti baan fadhiyaa hadda anoo arooskii wixii la yaaban ayaa waraaqiytiin bogtu jirtay iyo lacagi aad u badan marka dollarkan lama ogoleen beriga in la qaato dibadna wixii baan akhri warqadii baan ku jawaabay waxaan idhi markaa hees baan ugu sii jawaabay gabadhii maxay markaas iyada hadallada ay ugu tiri baan gabadhii ku nacay jacaylka horta ku baabaay wuxuu ku baabaay warqadda ay soo dirtay sababtoo ah waxay tiri nin jeeb weyn baan helay adiguna aniga ad leedahay u fiirso hadda hadna waxaan haddaan anigu lahaan lahaa ninkaa ila kaa lahaan lahaa jacaylkii waa baabaay jacaylka halkaa ku baabaay warqaddii baan ku celiyey marka waxaan hees marka warqaddii ugu diray lacagtana waan diray lalabka iyo xanuunka iyo leedhan waxaan la lalayaa lugooyada ay gaadheen layaa malaha leelay inaad lababogorso laadaa jacaylkoo dooq lacag ahaadee 2 dabaq nimaan degin caadda hawada sare laacdamaya mooyaa haweenlama caweeyaan ninka luudinaya leel daran daraadid anna laabtagaa jaleerarka caashiqa laxoor
laba farsan kala barbar fanaaninka daran Leila heesaas aad moogtay ma garat ad baad ma hadsan tahay ad baad soo waxaad ka samaha mid kala jirtay ceer gaabanim haddana daalme la ka dalxiis la yaasay daalan gabar ka jeclaa anu hawshoodo nijaara ayaa haddana akhriga ugu bilaabmay nimadii baa bilaabay akhrimadii ceer gaaba bilaabatay dabada gabadha baa la isku haydir aabaheed man si lacagtu u geey aabaheed baa marka meeshta galay waa dhintay halkii baan marka aniga soo noqday lawdaygi bay dhimay waxaan la hadlay waa garan waa gibigaba dabadna yeesi baa sameeyay gabadha waxaan ugu nama meed baa socdaa halka ayadoo maraysa gaadhida iyo har taagan baan la hadlay xaga socota meed baan ku socdaa hees halkaas ka sameeyo meesha loo dalxiisiyo meed ma gaadhi karaya سوار سمقي قام على ملها بورتي ماشي منامر ما بلاسي متهيا ميان كرنت دافا ميان هوغي بقى حرمو دافا وحين بهرجوغي مركز aan buurti dhaafay hoos u daadagay barti sheekhu yaaliye magaalada markaa tagay mayd qudbigiisi weynaa meeshaan ku kulaniyo macnihiya sanaag macnihiya jacaylkii shakadii macaanay mayd ma ilowdaynay oo bedela hadana magaxaas labada hadana u tiri magaasaan iyadii baan hadana mid labada u sii qaaday san may tagin soo qosonahay ku nooshahay sabac ergabiyo sanaag bay yiraahdaan surud baagteeda sinta sheekhiga yaal mayd baa laga siyaartaa maxamed dhacdaani way cabdiraxmaan ku soo dhaw chance secretary aad baan ugu dhawahay in aad u dhalinyaro baad runtii dadka ka qosliyo ku dhawaysaa way walaal ma hadsan tahay maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada gobolka Sanaag Ceergaabo oo ku soo dhaweynaa marka koobaad gobolka weeyash ku soo dhawaan ku leenahay gobolka taariikhda gobolka uduga sharaf iyo karaama Allah ku sharfo su'aalan ku weydiinaa kaftana oo anugu talagalay Ceergaabo inaan weydiino shirkadda Safar Salaama fududeysay barnaamijkan ka waran adeegyada shirkadda Safar Salaama ay idin qabato maadaama shirkaddu ay tahay shirkad isku xidhan gobolada kale maxaa kale والله runtii shirkaddan Safar Salaama hadaan nahay bulshada reer Ceergaabo runtii waa shirkad aad uga shaqeysa gobolka weeyaasha marka waxaan leenahay shirkadaasi shirkadaha kale sida Daala Group iyo shirkadaha kale ee gobolada ka shaqeeya wayna shirkadaasi ku daydan ma leenahay waa shirkad aad u shaqeysa arrimaha bulshada aad uga shaqeysa bulshadana runtii si fiican ugu adeegta marka waan soo dhaweynaa shirkadda su'aal kaftan ku bilaabaya wal qalin waxa jirta luqad Ceergaabo iyo Sanaag area caanka oo loo yaqaan maakhri waxyaabii kugu qosolka badnaa ama kugu leebka badnaa maakhrigaas Ceergaabo kullu ku badan yahay magaalada Ceergaabo runtii su'aalaha la yaabisay waxa weeye qofka labada qof ee runtii maxaan ku raadaayay labada qof ee dhalinyarada oo kale marka qof ay qof shaxaadan ama qof waxsiyo kale marka qof lacag wada diro mid kamid lacagta hungureeyo ayaa waxa kamid ah su'aalahaasi waad loogtay lacagtood ku soo loogtay marka su'aalahaasi waad loogtay iyo qombo baa tahay qombo oo macnaheedu waxa weeye wixii la wada siiyay baad qarsatay weeye marka bahalahaas aad caan bay ku tahay Ceergaabo baasha walaal magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Sugulle Sigiriya Jakarta oo soo dhaweynaya adiyo xirtaada Burcan nooga timi runtii waxaan leeyahay gobolka soo dhawaada hanaga maqananina nagu soo noqnoqdaan in badan baan soo dhaweynaynaa Cabdi Sugulle aad ma hadsan tahay saad nagu soo dhaweysay gobolka Sanaag ee ku soo dhawow channelka Sigiriya Jakarta reer Sanaag su'aal aan weydiinay oo waxaan doonaynaa su'aal ku weydiino barnaamijkan waxa fududeysay shirkadda Safar Salaama balka waran de gobolka Sanaag gobol dheer buu ahaayo Safar Salaamana waa fududeysay balka runtii gobolka Sanaag runtii waa gobol aad u fog marka Soomaaliland laga hadlayo marka runtii kullu shirkadahan basasku aad bay anaga waxtar noogu leeyihiin waliba siba shirkadda Safar Salaama aad baan u soo dhaweynaynaa yaaba marka adeegyada waxa kamida in aan ku tagi jiray sanadii hore oo kale $50 ama $60 balse imika $20 ama $15 aan ku tagno taas kamida shirkadda Safar Salaama dad ma shirkadu adeegyo kale soo kordhisay su'aashan u guda galaya maadaama gobolka Sanaag aynu joogno arrimaha jacaylka ayaan doonaynaa su'aalkaaga weydiino waxyaabii kugu la yaabka badnaa ama kugu qosolka badnaa aad jacayl aad kala kulantay horta waxa kamid ahaa kol qof wax la soo mara aniga tay soo martaan iyarkaaga taabanaya aniga jacayl baa horta igu dhacay aad u sii fogaay runtii inaan aan isku xaafad ahayn ayaan waxaan is jeclayn aan jeclaa anigu iyada garan maaye in 4 sano ku dhow 4 sano sidii aan ugu sheegan lahaa keliyata ayaan garan waayay dadana waxaan sameeyay wax kasta oo aan sameeyaa waan garan waayay inantaas ku xaafad baan nahay waga soo hor kacdaa waxaan sameeyay ma garanayo markaan arko iska dayna wax sheegtay ayuuma waxa noqdaa biyaba lagu shubaan aan arkayn mooy meel ka markaa dhici dadna say saas u socoto ayuun baan maanta dabixiniyay isgaliya waxaan isiriyo inanta la hadal
deedna telefoonkeeda baan garaacay shooyina telefoonkayga way haysaa deedna waxay soo qortuun hees saaxiibay soo qortay sidii nin bay la hadashay bal maxaad ugu jawaabtaa halkii baan horta aanan inta uga jawaabin aanu 4 sano sidii u jecel ayuunbaa mid aabihii lacag haysto uun yimi oo deedna inantii waa la doonay habeenkii lay sheegay ilaa iyo waa berigii waan soo jeeday habeenkaas ay ugu darayd inta adduunkaan joogay welina waan xasuustaa weli igama suulin taas aniga iga soo martay maxamed xuseen nuur baa la yidhaah maxamed xuseen nuur ku soo dhow channelka Secretary walaal waan dhawahay Secretary adigana Cergaabaan kugu soo dhaweynaynaa inaad noo timaadana aad baan ugu faraxsanahay iyo karaama Allah ku sharfo gobolka Sanaag waa joognaa barnaamijkan shirkadda Safar Salaama ayaa fududeysay oo isku xidha Cergaabo iyo gobolada kale bal adigada shirkaddu idin qabata horta faa'iidooyin badan baan ku haynaa Safar Salaama waxa weeye transportation si fiican uga shaqeeya magaalada Cergaabo haddaalba ku roon yahay alaabadaan u dhiibnaa dadkaanu saarnaa taashan ku bilaabaya walaan waxyaabihii kuugu qosolka badnaa ama kuugu la yaabka badnaa luqadda maakhirnimada Cergaabo Sanaag aad kala kulantaa bismillaahi raxmaani raxiim horta Cergaabo waa magaalo khatara haddaalba ku roon yahay maakhirigan aad bay ugu horeysaa runtii adigoo lagu dilayo ayaana lagu dareensiinayn gebigaba iyadoo lagu dilayo ayaana ku dareensiinayn iyadoo kurka lagala qoslayo ayay qudha kaa jarayaan waad markaa kala kulantay ama maxaa waxaan kala kulmay waxa ka mid ahayd sheekadii ugu yaabka badneed aan kala kulmay waxay ahayd maalmaha ka mid ah waxa dhacday magaalada Cergaabo anigoo ku sugan ayaa waxa dhacday niman tuuga ayaanu kulannay dadkan ciyaaladan dadka moobilada ka qaada haddii aanu kulannay waxaanu dhacday waan caraabay xafadan ku sii socday dabadeetna way iga hor yimaadeen ayaan waxay isweydiiyeen war faaraxani waxay ugu dhaheen war faaraxani waxa weeye waa qalluudaynaa bay ugu dhaheen anigu qalluudkii ma fahmin iyagii baa igu yidhi faaraxanaynu qalluudaynaaye markuuna dhaafo ayaynu ka daba tegaynaa filin u eeg calaa kulli xaal way ga daba yimaadeen dabeetana moolka tuur bay gudhahdeen nimankii waanu isdilay xaalad fara badan ayaga la kulantay haddii aan fahmayo arrinka qalluudka markaan waan carar lahaa waxa la yiraahdaa Xasan Axmed Ciise way Xasan Axmed Ciise maadaama reer Cergaabo Soma waa deegaankan haya deegaanka Cergaabo su'aal kaftana oo reer Cergaabo aan weydiinay waxa jirta luqad loo yaqaan maakhiri oo deegaanada Sanaag laga hadlo inta badan bal luqadda maakhiriga waxyaabihii kugu qosolka badnaa aad ka maqasho ama aad kala kulantay maxaa kamid ah anaaba ku hadla aniga lafteeda ku hadla bal ku hadal way bal maxaa kamid ah bal igula hadal aniga waxaan ku yiri markabkaas wuxuu sidaa ma geel baa masawaari waa ari ma hade geel buu sidaa marka maxay macnaheedu ay noqonaysaa bal ifasir dad buu sidaa manaagu sidaa mise rag oo sida waxyaabaha kale ee kamid ah maxaa kamid ah iyaduna waa badan yihiin waxyaabo badan aad ku fasiro bal ii sheeg ugu qosolka diyaarad baa cirka mareysay diyaarad buu ku muuqatay mise ma arkaysid mise ma arkay maxay marka iyaduna noqonaysaa waxay noqonaysaa waa arrin maakhari oo cajiib ah oo marka noo fasay macna ahaan caadi ahaan u fasay macna ahaan markaan ku fasilo waxay noqonaysaa diyaarad baa cirka mareysay waxaan arkaa calaamad baa muuqata calaamadaas waa midadkii aan ka helaa anigu haddaan doono oo hadday doonto qurux badan meelaha maraysa ayna qurux badan meelaha maraysa marka waxaan leeyahay diyaarad baa cirka mareysay talo ma